Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Maanta waxaynu ka hadli doonaa dalka Jamhuuriyadda Jabuuti oo ka mid ah dalalka Geeska Afrika. Waxaynu baran doonaa taariikhdiisa, magaalooyinkiisa, dhaqankiisa iyo juqraafi ahaan halka uu ku yaallo iyo sababta uu muhiim ugu yahay dunida. Haddii aad jeceshahay muuqaaladan oo kale, fadlan like, subscribe and share lana sii wadaag saaxiibada. Jabuuti waxay ku taallaa Geeska Afrika oo ay xuduud la leedahay Eritrea dhanka waqooyi, Itoobiya galbeedka iyo dhanka koonfur galbeed, Soomaaliya koonfur bari, halka bari ay ka xigto Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed. Inkastoo ay tahay dal yar, haddana waxay leedahay meel istiraatiiji ah oo maraakiibta ganacsi ee isku xirta Yurub, Aasiya iyo Afrika. Qarnigii 19aad, Faransiisku wuxuu heshiis la galay hogaamiyayaasha deegaanka. 27 Juun 1777, shacabka Jabuuti waxay cod u qaadeen madax-bannaanidoodii. Madaxweynihii ugu horreeyay waxa uu ahaa Xasan Guleed Abtidoon. Caasimadda dalka waa magaalada Jabuuti, waana xarunta ganacsi, dekedaha iyo dowladda. Magaalooyinka kale ee waddanka waxaa ka mid ah Cali Sabiix oo caan ku ah buuraha iyo xoolaha, Tujuula oo caan ku ah magaalo taariikhi ah oo ku taalla xeebta ganacsi ee Oboq oo ahayd xaruntii ugu horreysay ee gumeysiga Faransiiska, Dikhil oo caan ku ah dhul beereed iyo xoolo dhaqato, Carta oo caan ku ah shirarkii nabadeed ee Soomaaliya lagu qabtay. Jabuuti waxaa ku nool qowmiyadaha ugu waaweyn Canfarta iyo Ciisaha. Waxaa sidoo kale Jabuuti ku nool bulshooyin kala duwan. Luqadaha rasmiga ah ee dalka waxaa ka mid ah Faransiiska, Carabiga, Af-Soomaaliga iyo Af-Canfariga. Dhaqanka Jabuuti wuxuu ka kooban yahay marti-soorka wanaagsan, suugaanta iyo gabayada, ciyaaro dhaqameed, cunnooyinka sida bariiska, hilibka, kalluunka iyo cambuulada. Diinta rasmiga ah ee dalka Jabuuti waa Islaamka. Dhaqaalaha Jabuuti wuxuu ku tiirsan yahay dekedaha iyo adeegsiga gaadiidka. Dekedda Jabuuti waa mid ka mid ah dekedaha ugu mashquulka badan Geeska Afrika, waxaana isticmaala wadamo badan, gaar ahaan waddanka Itoobiya. Jabuuti waa dal yar marka loo eego baaxaddiisa, laakiin wuxuu leeyahay taariikh dheer, dhaqan qani ah iyo muhiimad istiraatiijiyadeed oo dunidu aqoonsan tahay. Waxay isku xirtaa qaarado, waxay door weyn ku leedahay ganacsiga iyo isku socodka maraakiibta caalamka. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like, share, subscribe garee kanaalka oo faallo ku reebo qaybta comment-iga magaalada ama goobta Jabuuti aad ugu jeclaan lahayd in aad booqato. Mahadsanid daawade. Nabadgelyo.